السلام عليكم داوديال kusoo dhawaada wararkii ugu dambeeyay uu idin hayo calanka TV qodobada aad ku daawan doontaan waxa kamid ah dowladda federaalka ah ee Soomaaliya oo soo daabulaysa ciidamo tababar u maqnaa dalka Eritrea oo in muddo ah mucaaradku dalbanayeen in dalka dib loogu soo celiyo balse midowga musharaxiinta ayaa walaac xoogan ka muujinaya in ciidamadaasi dhowrka kun ah dalka dib u soo gaaraan xilligan Axmed Madoobe oo ceel ku sii ridayay rajadii midowga musharaxiinta iyo ra'iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble oo dib ugu celiyay awoodii doorashada madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo Cali Guudlaawo oo sameeyay arrin uu aad ugu farxo madaxweyne Farmaajo iyo khilaafka Sheekh Shariif iyo midowga musharaxiinta oo banaanka u soo baxay kadib tallaabo uu qaaday xisbigiisa qodobadan iyo kuwa kale oo dhameystiran ayaa daawada ka daawan doonta calanka TV dowladda federaalka ee Soomaaliya oo soo daabulaysa ciidamo tababar u maqnaa dalka Eritrea oo in muddo ah mucaaradku dalbanayeen in dalka dib loogu soo celiyo balse midowga musharaxiinta ayaa walaac xoogan ka muujinaya ciidamadaasi dhowrka kun ah in dalka dib loogu soo celiyo mucaaradka ayaa hadda u muuqda kuwa marba meel ku boodaya maadaama ay codsanayaan in ciidamadaasi Soomaaliyeed dalka aynan soo gelin si wadanka wax xasilooni aysan uga dhicin ciidamadan oo haysta tababar aad u sareeya ayaa la filayaa inay noqdaan kuwii bedel lahaa ciidamada Amisom oo hadda aan wax howlgal ah ka sameyn gudaha dalka balse cuuriyaamiye hor socodka dowladnimada Soomaaliya guusha ay Soomaaliya ka gaartay siyaasadda arrimaha dibadda iyo dhismaha ciidanka qalabka sida muddadii uu dalka hogaamiyaha ka ahaa madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxa ay horseeday in dowladda Soomaaliya ay yeelato talada ama go'aamada kala dambeeysta ah ee ku saabsan waqtiga ay sii joogayaan ciidamada shisheeye ee dalka jooga sida Amisom iyo kuwa Yurub ee ilaaliya xeebaha Soomaaliya mucaaradka oo maalmahan ku baaqayay dagaal dadban ayaa hadda cabsi xoogan ka qabay in ciidamadaasi yimaadaan magaalada Muqdisho oo ay ka hor joogsadaan dagaal labaad oo magaalada Muqdisho ka dhaca maadaama ciidankan uu yahay dhowr kun oo haysta tababar aad u heer sareeya waana ciidanka kaliya ee buuq dhigi kara ciidamada qabiil ee daafaha magaalada Muqdisho ku xoolo qalanaya dhanka kale mucaaradka oo hadda xaalad gabaabsi ah ku jira ayaa wajiga gabax aad u culus kala kulmaya beesha caalamka oo iska dhagatirtay doodo aan meel ku salaysnayn bilo ka hor ayay gudbiyeen dacwad ka dhan ah madaxweyne Farmaajo iyagoo ku eedeynaya in caruur Soomaaliyeed uu geeyay dalka Eritrea sida darteedna ay dalbanayaan in dalka dib loogu soo celiyo mar kale waxay beesha caalamka ka dalbanayaan in ciidamada aan dalka la keeni karin oo dib loo celiyo ilaa ay doorashada ka dhacayso si doorasho ay iyagu doonayaan oo laba madaxweynaha ay u qabtaan dalka gudihiisa qalalaaso xoogan uga dhaco beesha caalamka ayaa ka gaabsatay inay jawaab ka bixiso hadaladooda aan iswaafaqsanayn waxaana madaxweyne Farmaajo loo ogolaaday inuu u madax banaanaado arrimaha ciidanka sidoo kale looga dambeeyo arrimaha doorashada ra'iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya mudane Maxamed Xuseen Roble dhanka kale madaxweyne Axmed Madoobe ayaa ceel ku sii riday rajadii midowga musharaxiinta ay ka lahaayeen hogaamiyaha maamulka Jubbaland Axmed Islaam Axmed Madoobe ayaa u dhaqaaqay dhinaca doorashada xilli saaxiibadiisa mucaaradka ay dalbanayaan in doorashada la hakiyo oo laga doodo caqabadaha taagan ee ka dhashay habka loo wajahay kuraasta ilaa ay hadda la doortay ee golaha shacabka Axmed Madoobe wuxuu ku jiray dhowr dhinac oo ay mucaaradku rajo ka qabeen inaysan bilaabin doorashada golaha shacabka inta laga xalinayo cabashadooda balse sida muuqata xariga ayuu u jaray wuxuuna ku dhaqaaqay dhinacaysan iyagoo jeclaysan maalmahan waxaa jiray doodo laba dhinac laga waday waana dhanka madaxweyne Farmaajo iyo dhanka xubnaha mucaaradka doodu waxay ahayd sidee loo heli karaa xal ka duwan doorashadan boobka ah iyo maxaa laga wada qaban karaa waxaa hawshan bilaabay oo welina wada xildhibaano iyo siyaasiyiin ku dhowdhow madaxweyne Farmaajo iyo mucaaradka ka soo horjeeda guuxaasi waxaa la aaminsan yahay inuusan jeclaysan ama uusan farxad gelin madaxweynaha Jubbaland Axmed Islaam Axmed Madoobe iyo dhinacyada la shaqeeya mar walba oo siyaasiyiinta fadhisa magaalada Muqdisho ee madaxweyne Farmaajo iyo mucaaradkiisu fahmaan mudnaantooda waxay lumiyaan miisaanka madaxda maamul goboleedyada sida darteed madaxda maamul goboleedyada ma rabaan in Farmaajo ama mucaaradka midkoodna uu miisaan culus ku yeesho si ay ayagu meesha uga bixin hogaamiyaha Jubbaland Axmed Madoobe wuxuu xalay sii daayay 14 kursi oo golaha shacabka ah taariikhda la qabanayo doorashada kuraastaasi lama shaacin laakiin fariimaha liiskan waa inay Dani iyo Axmed Madoobe dhabarka xijiyaan mucaaradka iyo maalmihii adkaa ay la soo wada shaqeeyeen hogaamiyaha Hirshabeelle Cali Guudlaawo ayaa isna shalay ku laabtay magaalada Jowhar
waxaana jira warar sheegaya inuu ka fikirayo inuu bilaabo doorasho golaha shacabka ah. Puntland weli iskama uusan xalin xiisadii ka jirtay magaalada Beledweyne. Haddii Puntland iyo Hirshabelle ay iyaguna ku dhawaaqaan bilaabista doorashada golaha shacabka oo ay kuraas soo saaraan, waxay ka dhigan tahay in doodii mucaaradka la aasay. Dhinaca u furan mucaaradka iyo tillaabooyinka ay qaadi karaan ayaa soo koobi kara. Axmed Madoobe wuxuu sanadkan dhisayaa Siciid Cabdulaahi Deni. Sida iska cad, Siciid Deni wuxuu ku qanacsan yahay tillaabada xalay uu qaaday Axmed Islaam Axmed Madoobe, waxaana la filayaa inuu isna liiska shaaciyo, walow uu weli ku mashquulsan yahay soo afjaridda xiisada ka taagan magaalada Boosaaso. Labada madaxweyne waxay rabaan inay muujiyaan inay jirto awood saddexaad oo iskeed u taagan oo aan ahayn farmaajo iyo midowga musharaxiinta. Mucaaradka way sii leecayaan hadda, waxay u muuqdaan rag aan fursad badan haysan. Tillaabooyinka u furan qaarkood iskuma raacsana, waa rag aan isku mowqif ahayn, maamul goboleed taageersanna uusan jirin, soo jeedintoodana aysan hadda wax bedeli karin. Inay ka qayb galaan doorashada hadda la sii ogyahay natiijadeeda, inay kala tagaan, inay farmaajo la heshiiyaan iyo inay tallaabo milatari qaadaan, midda u fudud ayaa la eegayaa maalmaha soo socda. Dad badan ayaa qaba in 3 toddobaad ee soo aadan ay wax weyn iska bedeli karaan xaaladda siyaasadeed ee dalka. Dhanka kalena, khilaafka Sheekh Shariif Sheekh Axmed iyo midowga musharaxiinta oo banaanka u soo baxay kadib tallaabo uu qaaday xisbigiisu. Xisbiga Himilo Qaran uu hogaamiye ka yahay Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa qaaday tillaabo banaanka soo dhigtay khilaafkii madaxweynihii hore kala dhaxeeyay xubnaha kale ee golaha midowga musharaxiinta. Gudoomiyaha xisbiga Himilo Qaran Suleymaan Maxamed Xaashi, xoghayaha guud ee xisbiga Xildhibaan Yuusuf Xuseen Axmed Gamadiid, gudoomiye ku-xigeenka golaha dhexe ee xisbiga Dr. Maxamed Maxmuud Shirwac iyo xoghayaha maaliyadda xisbiga Cabdinaasir Maxamed Sheekh Nuur ayaa kulan gaar ah la yeeshay Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble, sida lagu sheegay qoraal ka soo baxay xisbiga. Hase yeeshee, muhiimaddu ma ahayn kulanka ee waxaa looga hadlayay, waxaana xisbiga qoraal uu soo saaray ku sheegay in kulanka diiradda lagu saaray sidii la isaga kaashan lahaa sixidda doorashada iyo dardargelinta doorashooyinka. Waxaa la isku raacay in meel looga soo wada jeesto wax kasta oo dib u dhigi kara arrimaha doorashada, taas oo saldhig u ah horusocodka dowladnimada Soomaaliya, ayaa lagu yiri qoraalka xisbiga Himilo Qaran. Dalabka xisbiga oo ah in doorashada la sii wado iyo hanjabaad la daba dhigay waxay si cad u hor imaanaysaa mowqifka midowga musharaxiinta uu hogaaminayo Shariif ee ah in doorashada dalka la joojiyo. Shariifka ayaa sidoo kale la sheegay inuusan waxba ka ogeyn war-saxaafadeedkii golaha ee uu ku baaqay shir la isugu yimaado 10 Diseembar, waxa uuna ku soo beegmay maalmo kadib markii uu madaxweynihii hore ka dhoofay magaalada Muqdisho. Shariif markii hore waa uu qabay in doorashada la hakiyo oo la saxo qaladaadka, balse wuxuu ka soo horjeestay tillaabooyinkii kale ee golaha midowga musharaxiinta. Hase yeeshee, tillaabada uu xalay qaaday xisbigiisu iyo wararka ay soo saareen ayaa astaan u ah inuu sii durqay.